taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sariye Guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko oo arrimo shaqo u jooga dalka Colombia ayaa ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen guddiga ugu sareeya ee maamula ciidanka booliska adduunka. Shirkaasi ayaa waxaa lagu casuumay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana Soomaaliya ay noqotay dawladda kaliya ee Afrika ka mid ah oo shirkaasi ka qayb gashay kadib markii la arkay dadaalka ay ugu jiraan nabadeynta dalka. guddiga ugu sareeya ee maamula ciidanka booliska adduunka ayaa ciidanka booliska Soomaaliya ku amaanay howlaha adag ee hayaan iyagoo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed u aqoonsaday inuu yahay booliska ugu wanaagsan ee qaaradda Afrika kadib markii laga fiiriyay dhinacyo badan oo ku saabsan howlaha qaranka ay u hayaan sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sariye Guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko. National Anthem of the Republic of Colombia performed by the Symphony Orchestra of the National Police.